beesha daarood way bannaankay soo jirtay laakiin iyaduna way ka soo horeysay wuxuu sheegay in uu Jibraahiil ku soo dhaweeyay Sheekh Isxaaq maxaan ku raadaan dhinaca iyo xeebta qolada daaroodna ay dibadda joogtay deegaanka waxa yaallay sida uu ina Bokor Xusay magaalo boqora Jibraahiil iyo Gahayle inta la garanayo beesha daarood way bannaankay soo jirtay laakiin iyaduna way ka soo horeysay reer Sheekh Isxaaq waxaan u sheegayaa inaynu Soomaali ugu dambeynay oo gorodambeyskeedii nahay qalan aqalkii u dambeeyay halkan hadda ka hadlayay aqal dafac wuxuu sheegay in uu Jibraahiil ku soo dhaweeyay Sheekh Isxaaq maxaan ku raadaan dhinaca iyo xeebta qolada daaroodna ay dibadda joogtay marka daarood wuxuu kala kaxaynayaa iyo Jibraahiil oo xuleey daarood Jibraahiil baa soo horeeyay Sheekh Isxaaq soo dhaweeyay daaroodna bannaanka ku jiray كل دقنك waa isku xantaado waa leena ka badiyaa boqoladan tiraahdaa daarood waa runtood weeye waxaad ka garanaysaa sida xafladan loo soo agaasimay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan uga gudbayaa boqor Maxamuud Xuseen Maxamed oo ka soo jeeda reer Facweyn aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadda Jibraahiil tihiina waa idin la qaadanay si kaliya laabaan idin la qaadanay si rasmi ah baan idin la qaadanay waa ku faraxsanahay waa la shaqaynaynaa waana bahda dhaqanka ayuu ku soo biiray ixtiraam gaar ah oo reer ahaaneedna waanu siinaynaa ina Bokor baa iga horeeyay taariikhan islaa xus waa ka dabageynaya waana ku faraxsanahay markii Sheekh Isxaaq uu dacwadda waday ee boqolkan daaciga uu gobolkan u yimi ee uu meed ka soo degay taladii u horeysay iyo hoggaan qabadkii waxa siiyay Jibraahiil taariikhda uu ina Bokor ka soo sheekayay uu ku gacan qabtay isaga waana ku bacwaadnay waana ku barakownay sheekhiina halkaas uu ku degay oo dhidibada ku aastay deegaanka waxa yaallay sida uu ina Bokor Xusay magaalo boqora Jibraahiil iyo Gahayle inta la garanayo beesha daarood way bannaankay soo jirtay laakiin iyaduna way ka soo horeysay reer Sheekh Isxaaq waxaan u sheegayaa inaynu Soomaali ugu dambeynay oo gorodambeyskeedii nahay waxaan kuntaa ku darayaa idinkana Jibraahiil waxaan leedahay ducadii sheekha waa ku baraadheene haysta oo xojista oo mar qura haylaawina waxaan ku soo koobayaa hadal lama wada oran karo ee wax la yidhi yareeyana kama wada tegin nin badiyana ma wada oran waxaan anigu af maanta reer hoose ku hadli maaye afka reer Sheekh Isxaaq baan ku hadlayaa waxaan u sheegayaa reer Sheekh Isxaaq 12 ilmaadeera nin Cabdi Maxamed la yiraahdo abtigayo Abdurrahmaan ay sheegay 12 ilmaadeer oo ilmaadeer saddexaad ah Jibraahiil baa dhalay oo qoyskana dhalay waliba intaynaan beelaa kale isgaadhin waxaynu ka soo jeednaa reer Sheekh Isxaaq oo dhan dhalay sida ina Bokor u sheegayay Jibraahiil baa dhalay waxa ii sheegay Sheekh Aadan baa ii sheegay nimanka halka ka hadlaya abahood baa iga warramay waxaa nin samakatalisa anigu la soo shaqeeyay waxaa nin aad iyo aad ugu shaqeeyay boqorka alleenahay Allah u naxariisto isaga iyo intii dhimatayba boqor Maxamed waxaan leenahay soo dhawow waanu aqbalay beesha Jibraahiil aad iyo aad hawshan ay aad ugu soo shaqaysay ee aad ka muuqata ee aan waxaan ku raamidoow ku jirin annaguna waa idin la qaadanay waana idin la kaxaynaynaa insha Allah boqorkana gacmaha qabanayna waxaan leenahay ilaahay xilka ku asturo
iyo maxaan ku radaa mas-uuliyadda loo dhig intaa ka bacdi waxaan filayaa odayaal badan baa iga horreeyey waa run beesha jibraahil waa beel fac weyn taariikhdeedana lama qarin karo hase haatee dadka waxaan isleeyahay abtirsiimaha xogaa baa wax ka yar qaldan yihiin masalan caaqalkii u dambeeyey ee halkan hadda ka hadlayey caaqil dafac wuxuu sheegay in uu jibraahil ku soo dhoweeyey sheekh isxaaq maxaan ku rahdaa dhinaca iyo xeebta qolada daaroodna ay dibadda joogtay marka waxaa lee daaroodii wuxuu kala kaxaynayaa iyo jibraahil oo wuxuu leeyahay daarood baa jibraahil baa soo horreeyey sheekh isxaaq soo dhoweeyey daaroodna bannaankuu jiray waxaan leeyahay horta dee ninku waa nin daarood ismaaciila waa nin absame ah waxba yaan la soo gaabin abtirsiiyaha waa runoo aakhirka jibraahil bay imanaysaayo taariikhdiisu aad u ballaadhnayd oo dee reer sheekh isxaaq oo dham halkan uu ka sheegay saaxiibkay aadan abukar jif caaqil aadan aad uga sheekeeyey waxa weeyaan beeshu marta casumaaddaad casubteen allah idin casumo adiga iyo jif caaqil faysalba annaguna waa casumaynaa insha allah waan casumaynaa iyo waxaanu ku casumaynaa degmadan aynu joogno lafteeda caargaabo ayaynu ku casumi doonnaa insha allahu